Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood adduunka daafiisa aad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga Dhool Dhalaal Cooking. haddii Allah awood u qadar insha Allah maanta maxaan hagaajisan doonaa cabitaankan quruxda badan carafta badan aadku macaanka badan ayaan hagaajisan doonaa dhadhankiisana oo inaba aan caadi ahayn. Halkan maxaan ku haysanaa hal xabo qumba ah oo aan soo jarjaray ama soo hoolay ayaan halkan ku haysanaa. sidoo kale maxaan haysanaa hiil ayaan haysanaa. hiilka caraf iyo dhadhan ayuu siinayaa maasha Allah. xabada qumbaheed waa taasaa qolofkeedii maasha Allah. sidoo kale halkaas maxaan ku haysanaa 2 galaas oo dheer oo caanaha. ani caanaha booraha ayaan isticmaalay. caanihi aad heli karto ayaad isticmaali kartaa insha Allah. haddana maxaan aadi doonaa dhinacaasi mashiinka aan ku shiidan lahayn. waan isku darsanaynaa waan soo shiidanaynaa. marka aan soo shiidano ayaan isku soo noqon doonaa walaalahayga qaaliga aan jeclahay. markii aan soo shiidanay asxaabe waa kana hadda weli ma miirin waan soo miirayaa insha Allah. markaas ayaan isku soo noqonaynaa. haddii adiga aad jeceshahay sokor ku darso, haddii sokorta ay ku dhibaysana waad iska dayn kartaa insha Allah. taas adiga ayay kugu xiran tahay. qashinkii wax dhan ayaan kasoo miiraynaa insha Allah. waan isku soo noqon doonaa sida kusoo baxana waad ila arki doontiin maasha Allah. annaga hadda waan ku casheynaynaa insha Allah. adiga ama qado ka dhiga ama quraac ama casho. maasha Allah tabaarakallah. asxaabteyda qaaliga aan jeclahay markii aan soo dhameeyay sidaas quruxda badan la ayuu noogu soo baxay. 2 galaas oo caano ayaan ku shiiday oo aan ku daray maasha Allah. wuu noo batay inaba caadi ma ahan. hadda waan qaboojisanaynaa insha Allah. markaas kadib ayaa la cabi doonaa haddii Allah awood u qadaro. inta aan haysan waxaan Allah uga baryayaa inuu risiq xalaal alla siiyo, intii haysatana alla u barakeeyo insha Allah. fadlan haddii aad nagu cusub tahay walaal subscribe-ka nagu caawi, gambaleelkana sii furo si muuqaalada ay isku dhaafin insha Allah. haddii aad ka heshay like dheh, la sii wadaag asxaabtaada oo la sii share garee. wixii comment iyo duco iyo talo iyo tusaalahana hoos noogu reeb insha Allah. soo dhawaada ayaan idin leeyahay nala caba cabitaanka. inta aan ku kulmi doono muuqaalo kale oo idin cajab gelin doono maxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabaadiino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.